السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي جميل كستاجوكتين سو دوار channel كيني حرونت عن تضعفماتك ولاشين شكري آدم بوله أصحاب تقيمها بدن إننا حودا نغلا سعوت السو دوار إندهايا انت أسي جودا جولين توبيك إنو حنيق عصنا إنا سبسكرايب سميسين لايك غريسين شي غريسين هذا نوع عصب تهاي السو دواتي يعني channel كينا وايه ما أنت توبيك إنا تابق آد وفي عن وايه أو سغنا حيالا بدن لغا سويدي dad badan aan ku arkay ilban dhalinyaro hadda ku arkay topigaas wuxuu ku saabsan yahay waxa weeye dadka badanaa dhabarka laga haayo lower back la dhahaa dhabarka hoostiisa meeshaas oo hoos maxaa la dhahaa inta meesha oo meesha gabadha hadda haysato lower back la halkaas ayaa la dhahaa waxyaalaha natural way oo lagu xanuunkaas uga bixi kartid ayaan rabaa inaan halkan kusoo daayo waxa ugu horeeyo waxa la rabaa qofka bini'aadanka inuu maalintii habeenkii uu helaal ay kurdo 8 saacadood ilaa 10 saacadood marka ugu yarta 8 saacadood in heshid dadka badan habeenkii soo jeedo xanuunka laga qaada lower back hadhow waxa arkaysa qofkii dhabarka ku xanuunay hadii qofka habeenkaas xanuun arkaysa ku dhahay dhabarka hoos gadaal ayaa laga hayaa hadii ku xanuunaysay horeyna way kugu sii darsoomaysaa waxa labaad oo xanuunaha la iskooga baabi'in karo oo naturally oo ka caafimaad ah waxa weeye qofka inuu sameeyo xijaama hadda xijaamo iyo tobitan waa la bartay gaalada way sameeyaan xoog u sameeyaan waa sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam 48 ay ka tahay maxaa la dhahaa oo xanuuna ah waana la isku raacay even dadka lafta dhabarka laga haayo iyo kuwa hoosta meesha hoosta laga haayo caafimaad u tahay sameeyaan dhihi lahaa sida ugu dhaqso badan hadii laga haayo dhabarka meesha dambe hoose dhabarka hoose midka saddexaad way asxaabta qaaliga ah dadka badan ka siinin waxa waaye inuu qofka bini'aadanka aan sameeyno exercise hadii jirkaaga isku jirjiraan oo tishugaaga isku jirjiro oo wax dhan kala baxsaneen sida lagu dhalay ilaa waliga aan sameeynin exercise of course xanuunkaas loo bakno ku iimaanaya run ahaantii qofka markuu wax yar korood badana dad haduu accident kugu dhicin ama cirbad lagu dhufanin ama nabar kugu soo gaarin hadii nasir liska xanuunto exercise u baahan tahay exercise ka lagu dadaalo hadday noqoto maxaa la dhahaa orodka hadday noqoto waxa jiro training yaal oo yaqaanaan sida lagu talagalay ku barayaan oo maxaa la dhahaa xanuunkaas uu kaaga baabao exercise yar xitaa light sameyn kartaa hadii xitaa maxaa waxa caafimaad kale oo ah inaad dabaalatid waxaas oo dhan jirkaagaas hadaa shaqaysi guriga shaqo fiican ka qabatid waxyaalahaas exercise dhan lower back waa la hubaa inay u tahay caafimaad run ahaantii inay sheegayo waxaan ka saylay sheega wax been mini soo daayay ayniga hubo mida kale waxa ay asxaabta qaaliga xanuunka dhabarka lafta gadaalka joojinaysa waxa weeyal dhahay inuu qofka bini'aadanka actually dad badan oo xanuunkaas qaba jiro is ogeen oo u keenay fitamiin yar ka dhacsan waa fitamiin D gaaga du 0 yahay waa helaysaa lower back takhaatiir aan waxa arkay oo wax yaqaan laakiin maadaama ay u fiirsaneen hadhow markii iyagoo takhaatiir ah ee research badan sameeyeen waxay ogaadeen xitaa inuu waxa yahay fitamiin yash ka dhacsan fitamiin D gaana ugu fitamiin D because lafaha qofka bini'aadanka la shaqeeya that's why arkay dadka jilbaha wax xanuunaan maanta oo dhan atresis ugu dhaco dhabarka ku xanuunayo sida ugu dhaqsaha badan fitamiin tablet ka qaado qoraxda tag laakiin waxaan ku dhihi lahaa kaniiniga oo waxa qaadata oo fitamiinka ah oo fitamiin D ga qaadan ku dhihi lahaa because waxyaalo badan ayuu ka caawinayaa wax iska hadal ma asxaabta qaaliga aniga hadaan Soomaaliyeed hayna oo badanay darunta isku sheegno dhabarka badan dad badan oo xanuun ku hayo way jiraan okay dad oo wax ka soo gaareen laakiin waxaan ku dhihi lahaa kugu la talin lahaa qaado waxa kale oo caafimaadku wax yoga la jiro yoga gaasna waa exercise research gareeya google ka fiiriya isagana uu fiican yahay dadka dhabarka xanuuna waxyaalaha kale u fiican asxaabta qaaliga dhabarka haduu ku xanuunayo oo oo ka caawinayo inaad ku fiicnaatid waxa waaye inaad qaadatid biyo qandac ah ku fadhiisatid taabka inta ku shubatid asaas madax ku sameysay iyadana xanuunkaas iyo dhiigaas xirxiran ay ka caawinaysaa soo waxyaalaha dhan ka hadlaayo waa waxyaalaha qofka bini'aadanka markuu maxaa la dhahaa dhabarka xanuunayo natural way oo maarkay isagoo daawo waxaas ku jirin ka caawinayo ina waqti fiican seexatid habeenkii 8 saacadood ilaa anaga hurdada horta ma waa Soomaalidan hurdada wax kama soo qaadno dadka runta dil isku sheego exercise yaasha sameeyno oo yani takhaatiir aan tagno
waxyaalahaas dhan waxyaalaha ka caawinaya asxaabta qaaliga hala la socdo. waxyaalaha kale oo fiican asxaabta qaaliga waxaa waaye masaajinga dad waxaa jiro ku takhasuseen oo yaqaanaan, dadka yaqaan kuwa hilibka bas masaaj gareeya maaha, kuwa lafta gaaraya. dad waxaa jiro caadi normally barteen oo dhaqaniyan u barteen. dadka kale oo caafimaad ahaanta u bartayna dhinaca masaajinka ah waxaa la dhahaa physiology waxaas waa kuwa takhaatiirka ah isbitalaha waaweyn laga helaa oo governmentka ama privateka appointment dhiganaysaa. waxaas shaqadooda waayo caafimaad waayo iskuul uga soo bixin jaamacada uga soo bixin in qofka diligaan sida lagu talagalay wixii xanuunay iyo maxaa la dhahaa xididihii naafsiyaashii qaladka meelii wixii maro dhan inay diligaas qofkaas caafimaad iskana ku halayaa. adna waxa ku dhilaa isdiliig dad qofkaas iyo ku diliigin u tag kuwa caafimaadka oo dhakhaatiirta waa in facility la dhahaa kuwaas aad research garay iyana appointment la dhigo. aad iyo aad ayay muhiim u tahay qofka dhabarka markuu xanuunayo hadda adiga xitaa isga diligelin kartid tartiib lafta dhabarta xanuuna laakiin dhinaca hoose waa saliid gareyn kartaa. waxaa la isku diliid garayaa xitaa diliiginka ay maxaa la saliida saytuunka xabad soodada adoo waxay kale dhan sameysana haddii markaa nabarkaas uu kaa fuqi waayo aragtay nabarkan nabar tagaynin inuu yahay markaas waxaa kula tagi lahaa isbitaalada aad waaweyn kuwa facility u tag iyaga ku diliigayaan iyaga appointment ku dhigayaan iyaga shaqadooda waa waxaas oo dhan dadka xanuunahaas qaba ayay lafaha laga haayo ama dhabarka gadaal laga haayo ayay caawiyaan ma fududa lacag badan ka qaadanaya laakiin caafimaadkaaga wax kasta ka muhiimsan oo lamboonka asxaabta qaaliga ah. soo waxyaalaha dhan ay soo sheegay waa waxyaalaha caawiya natural way-ga ah qofku markuu dhabarka gadaal meesha gabadha haysato oo xanuunayo uga bixi kartid. hadda marka asxaabta qaaliga ah waxaa dhan waa natural way waqti ay qaadanaysaa waxaa habeen ku imaanaya ma aha cabaar ay qaadanaysaa laakiin waa ka arkaysiin result waa xubaa alaas xanuun weyn oo markaas qalitaan ama waxyaalo kale u tagtid oo lagu soo fiiriyo scanning maahane haddii waxa naturalka ku haayo waxyaalahan dhan ay nii sheegay waa waxyaalo aad u muhiim ah anaan iniga hubo oo soo sameeyay xitaa waqti ay jiri jiray dhabarka liga xan jiray waxa ugu horeeya oo aan kula talin lahaa qof muslim hadaa tahay gaalada xitaa barteen sameey xijaamada waxyaalo badan ayaa ka arkaysa xijaamada aad ayuu muhiim u toobitaanka aad iyo aad muhiim ayay u tahay kaas ka bilow ayaan ku dhihi lahaa ka bacdi waxyaalaha kale oo la sameeyay kula waxa kale u fiican asxaabta qaaliga qofka in stresska iska ilaaliyo hadii buuq badan iyo stress badan xas kugu fuliina kuma fiicna xanuunka kugu sii saacidaya biyaha qabow xitaa waa caafimaad biyaha kulul ayaa horta fasti ah biyaha qabow xitaa iyadana caafimaad waa inaad taab ku shubtid isagana aad ku saas gadaal ugu siixatid aad ku relax garaysid waxaas dhan caafimaad waaye dhakhtar inaad la socotid ina activity sameysid activity xaliga inaad dhaqdhaqaaq jirkaagu sameynaa meel yaalisid baradhadii maanta dhan oo waxba aan sameeynin xanuunka kugu sii zaa'ideeyaa dadka badan dhabarka xul xanuunaan arkayda Soomaalina runta isku sheegno waa dhaqdhaqaaq la'aanta maanta dhan meel aan u jiifnaa waxa rabnaa wax kasta intii waxa noo soo qabo hadhow waxa ku dhaha meel aan laga hayaa waa iska waaniga tay runta daayni sheego waa in jecelahay waxyaalo fiican ay in raba soo waxyaalo dhan sameysid waxaan rajeynayaa in out wax fiican result fiican kaaga soo baxo halkaas ay uga sii guud baxaya sheegareeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh